dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa si weyn isugu soo baxay munaasabadda Ciid al-Adha awgeed waxaana goobtaasi kula tukaday wasiirro ka socda xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Dr. Saad Cali Shire, wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamuud Axmed Barre Gare, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi, maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan iyo maareeyaha dekedda caalamiga ah ee Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor. waxaana sidoo kale halkaasi wacdi dheer ka jeediyay culimada gobolka Saaxil halkaasi kala hadlay dadweynaha kuna booriyay Ilaahay in laga cabsado iyo in la isaamaxo maalmaha ciida. Sheekh Salabadkaasi wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo dadweynaha halkaasi kala walaalayaal hadal badan kuma jiro meeshan umadaha goobtahay waxay leeyihiin wax mideeyo oo ay wada leeyihiin waxa ka mid ah tan aynu maanta joogno oo ah farxadaynu ku wada ciidno waxa ka mid ah in aynu midnimadeena iyo wada jirkeena wada ilaashano umadaan midaysnayn meel ma gaadho aqoonsi ma hesho cadowna iskama caabiso ciidda horumarka iyo mustaqbalkeedii wada ciidda wanaaggeedii tusaysa gurigaaga hortiisa xashiishka qaad baa lagu leeyahay bilaash baa laga gura xashiishka caalamkiisa kale lacag baa laga qaadaa. Saciid Cali ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay jidka isku xidha Burco iyo Ceerigaabo. sidoo kalena wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Mr. Garaad ayaa isna ugu baaqay dadka reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan qaadhaanka jidka. waddo kasta oo Soomaaliland ka bilaabantaa Berbera ku dhamaataa dadka Ceerigaabo maanta faquuqan ee Boosaaso iyo meelo kale fara badan ku xidhani Berbera ayay ku xidhmi doonaan dhaqaale ahaan, rar ahaan, dal ahaan iyo dad ahaanba. dadkaana walaalayaal waxaan bulshadeena ugu baaqayaa in laga qayb qaato qaadhaanka waddada dhismaha waddooyinka qaaliga inagu ah ee ka mid tahay waddada Ceerigaabo oo loo baahan yahay inaan gidigan ka qayb qaadano. ayaa waxay ku dhamaatay jawi degan waxaana ay dadku isugu hambalyeynayeen munaasabadda ciida awgeed. Cabdikariim Sheekh